نظر الزهر فاصطفاك عبيرا وغدا الليل من سناك منيرا وكأني أرى النسائم رقات وغدت من شذاك عطرا أثيرا لمسات الجمال جاءت كقلب واحد فاض من هناه سرورا أي يوم كيوم سعدك فينا يجعل الدمع في العيون بشيرا إن بكينا فللسعادة دمع حال عجز اللسان يغدو سفيرا حروف الوداد فينا تهني فرحا سرنا كثيرا كثيرا جمع الله بينكم في هناء وأحال العسير سهلا يسيرا وأحال العسير سهلا يسيرا نظر الزهر فاصطفاك عبيرا وغدا الليل من سناك منيرا وكأني أرى النسائم رقات وغدت من شذاك عطرا أثيرا إن بكينا فللسعادة دمع حال عجز اللسان يغدو سفيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين ولا ليال سوق بن دونا حلقة دي لبعض برنامج كينا قيسكي إسلامك. وحنا إن شاء الله تعالى تلمام دونا سيدي إنه سوق هذا ندرس جوهر حقي سيدنبه محا كيري كرا سعادة أما فرحة أما اللي بأنت محا قيسك وكيني كرا. إنتي نانجو دقري سؤال جوابتي ده وحين دريمي كرا dadka in fara badan oo kamid ah waxay isugu maahmaahan qof kastaba qumanihiisa qoorta loo suray iyagoo u jeeda qof walba ra'yigiisa ra'yiga dadka kale ka qurux badan oo tijaabadiisa tijaabada dadka kale kala qurux badan oo aragtidiisa iyo arrinkiisa ka qurux badan mar walba ka dadka kale waxa laga yaabaa qofku inuu doono inuu reerka wanaajiyo ama reerka uu farxad u keeno isagoo ka duulayo ka kicitimayo ka soconaya tijaabooyin gaaban oo yaani badideedu fashal ku dambeynayaan dabeeto goor ahayn oo wax badan ka kala dhaceen ama wax badan uu seegay uu dib markaa u raacdeeyo inuu markaa u hagaajiyo isagoo la qodobkaana aqoon yaraan ba iga haysay ama kaana waxa iga hayay khibrad la'aan si wax badan oo walaalayaal dhacdhacay inuuga badbaadno reerheenu wanaagsanaadaan waxaynu ku dayan doonaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo gudbin doonaa qoyskii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu faraxsanaayo qiimaha lahaa oo adduunka oo dhan iyo bashariyada iyo ibnu aadamka oo dhan tusaalaha u noqday waxyaabihii uu ka horumaray si kuweenuna ay u horumaraan ay u hagaagaan waxaynu leenahay reerka ama qoyska oo hagaaga waa noloshii adduunyada oo hagaagtay weey nolosha adduunyada oo hagaagtaa macnaheeduna waa noloshii aakhiro oo ku hagaagtay weeyaan macnaheedu haddii nolosha qoysku aanay hagaagin oo sacaadiyo faraxti lahayn SGT iyo muran badan ay ku dhisan tahay iyo warwar iyo culays adduunyada dhan baa qofka culays ku noqonaysa adduunyada culays ku noqoto macnaheeduna cibaadooyinkii baan wax badan ba ka haleelayno aakhiradiisa muran galaysa sida darteed baa labada ilaahay tabaaraka wa tacaala xidhiidh ka dhaxaysiiyay in qofka adduunyadiisa wanaagsanaato aakhiradiisa ay wanaagsanaanayso adduunyadiisu qofka ay xumaato ee muran iyo ay ku jirto un dambi iyo sharna aakhiradiisa marka wax weeyaan uu seegayo sacaadadu ama faraxtidu reerka dhexdiisa timaada waxaynu leenahay waa shayga la dhasho nolosha oo qofka ibn aadamka marka waalidkiisu yaani uu dhasho adduunyada yimaado waalidkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka ku faraxsan ku xareero dhan way farxaan isaga laftiisu farxad buu marka wax way ku barbaaray ilmaha yar farxada iyo sacaadada uu ku barbaaray baa la doonayaa inay gaadhay ilaa noloshiisa aakhirkeeda haddaba xagaynu u mari karaa oo sidaynu u gaari karaa waxaynu walaalayaal ku gaari karaa ama aynu markaa ku heli karaa nolosha iyo usrada iyo qoyska inaynu marra talaabooyinka soo socdo
waxaan insha Allah taala baraarujin doonaa ilaa 5 qaacido oo waaweyn iyo talaabooyin yar yar oo kala gaagaaban oo lagu gaari karo ama loogu soo jiidi karo farxadda marka reerka loogu soo jiidi karo waxaynu leenahay intaynaan bilaabina oo inuu ka sii cudur daaranaynaa si kastoo muxaadaro loo qabto reerku dema waayo khilaaf iyo safdhaaf ma waayo iyo dhibaato yar oo timaado laakiin khilaafyada qaarkiina waa khilaaf xalintiisu bay iska dhowdahay oo fudud oo culays badan aan reerkii kaga tagin midna waa mid marka daxal kaga tagaya xalaqaad dambe ku soo gudbin doonaa insha Allah taala khilaafka iyo sida loo xaliyo laakiin waxaynu leenahay khilaafaadka yar yar waxay la mid yihiin sida xabadda ubaxeed doonaysa inaad goosato waxaynu arki karnaa waxay leedahay qodxo udug iyo quruxna way leedahay qofku dee ubaxii inuu uga taga maaha qodaxda ku yaalee intuu goosto inuu qodaxdana ka dhilo weeyaan udgoonkiisa iyo quruxdiina uu intifaacsado oo marka waxa weeye taransado wax u qabato dee intii xumeedna marka waxa weeye iska tuuro reerkii qoyskuna caynkaas oo kala weeyo lama jare oo lagama taga inta yar ee ku xeerxeersan waa la hagaajiyaa iyadoo lagu daweynayo qodobada nabiga kaleey salaatu salaam ina barayo muallimul bashariyati kaleey salaatu wasalaam waxaan ka cudur daaranayaa walaalkayga ama walaashayda xalqadan daawanaysa waxa laga yaabaa inuu qofku yiraahdo waa wanaagsan tahay waa qodobo fiican dabcan laakiin aanu hoggaansamin qof kasta oo waa qodobo wanaagsan laakiin aan ficil ku muujinayna afka ka taageerayo sunnada nabiga kaleey salaatu salaam iyo noloshiisu sida ay ahayd macnaheedu wuxuu noqonayaa wax badan oo isaga noloshiisa aan waxba iska bedeli maayaan قاعدة كوباد الريرك كهجاجية وحيتها يارك كوباد بقدر بعدك عن الحرام تسعد مع أهلك أنت هذا حرام تكفك تهي ريركاga sameyntiisa ka hor iyo reerkaaga dhexdiisaba inta aad xaraan ka dheertahay bad reerkaaga la farxaysa rabbi tabaaraka wa taala waxa uu man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun ilaahi jalla jalaaluhu wuxuu tilmaamayaa qofka amal wanaagsan sameeya oo lab iyo dhadig ah isagoo mu'min oo ilaahay rumaysan subhanahu nolosha adduunyada nolol wanaagsan baa lagu nooleeyaa buu alla leeyahay aakhirana waxa lagu abaalinayaa wixii uu sameeyay wanaageedii iyo marka fiicnideedii baa lagu abaalinayaa sida ilaahay jalla jalaaluhu tilmaamayo waxa ay marka waxa weey walaalayaal dareemi karaynaa liibaantaasi waxay noqonaysaa adduunyo iyo aakhiraba way noqonaysaa waxa ay sameeyeen ama salafkii iyo saalixiintii hore waxa ay tilmaami jireen maalinta ay dambi ku dhacaan in reerkooda ka dareemi jireen taabiciintii qaar baa laga sheegay inay yiraahdeen maalintan daabadayda iyo neefkayga fahmi waayo maalintan caruurtayda iyo islaantayda fahmi waayo dib baan isugu noqon jiray bay yiraahdeen waayo ana wax badan iga khaldan markastoo qofku ilaahay uu ka fogaado waa markastoo nolosha wanaagsan ka fogaato markastoo ilaahay uu dhawaadana waa markastoo nolosha wanaagsan ay u soo dhawaato arday wax ka barata jaamacad ku taala Dimashq ayaa waxay sameeyeen baaritaan yani sida waaqic uga rumaynaya arinta waraaqa waxay u qaybiyeen miyada iyo magaalada Dimashq ku xeersan waxaanay su'aalo weydiinayeen ku saabsan calaaqada iyo xiriirka yani xaaraanta iyo xiriirka xalaasha ah farqiga uu u dhaxeeyo guurka ka hor iyo guurka kadib natiijadoodu waxay timid 90% iyo ziyaado 96 meelahaas reeraha dadkii sameeyay markii hore ay xaaraanta ka dhowrsanaayeen markii dambe ay xaaraanta ka gaabsanayeen ayaa 100% ka saacada batay oo ka faraxti batay oo ka liibaan iyo baraaro batay reerihii marka xaaraanta isticmaali jiray ama inta aanay marka reer noqon xaaraantu la fududay markay reeraha noqdeen lafteedana wixii xaraamay ilaahay tabaaraka wa taala uu ka xaaraantilmeeyay fudaydsaday culeyskeedii bay dib ka dareemeen qaacidada koowaad marka waxaan ku dhaafaynaa waa inaad xaaraanta iska ilaaliso si ilaahay reerkaaga kuugu ilaaliyo qaacidada labaad waxay noqonaysaa inuu istareensiinayna walaalayaal as'abu aamin في البيت أو في الأسرة هو العام الأول reer kastaba waxa ugu adag oo ugu dhib badan waa sanadka koobaad sanadka labaad baa xigaya ilaa marka mashaakil kuwa iska dhamaadaan labadii ruux ay noqdaan sida naf kaliya to mar wada damqata oo mar wada xanuunsata oo mar wada faraxda mar wada murugoota hadii marka qoysaska cusub labada sano u horeeya ama sanadka u horeeya xogo yar isafgarad uu iman waayo ninka iyo gabadhaba waxa laga sugayaa inay sabraan inay dul qaataan marka waxa weeyaan xoogo bal hada labada sanadka reerka ay baxnaaniyaan ay ilaaliyaan daraasaad lagu sameeyay furitaanka waxa ay soo gudbinayaan dad yani xiriir ama calaaqo ama cilmi badan u leh ama takhasus ba u leh usrada iyo reeraha waxay leeyihiin dalaaqa dhacay iyo furitaanka dhaca 83% wax ku dhow 83% wuxuu dhacaa labada sano ugu horeeya ayaa reeruhu kala tagaan
marka waa in loo sabro oo inta la baxnaaniyo ama la wado wixii dambana insha Allah ta'ala wala isla fahmayaan nolosha sababta keenaysaana waxay tahay ninkuna markuu suuqa iyo magaalada ka yimid reerahoodii geesuu leeyahay gabadha lafteedu markay reerkoodii ka timid geesay leedahay waxa la rabaa in la isgees garaaco la isfahmo marka nolosha dhan loo wada qabto القاعدة الثالثة قاعدة صدحات reerku ku hagaagi kara waxay noqonaysaa الحياة الزوجية تنبني على المحبة والملاطفة وعدم الإصرار به in marka kalgacaylka iyo dabacsanaanta la isu qabaan la muujiyo marka waxay la qarsaneen inuu noqdo wax muuqda oo la dhiiri geliyo usrada iyo reerka iyo qoyska iyo xaaska iyo caruurta iyo odayga wax isku xidhow nabiga kaleey salaatu salaam Umar ibn al-Aas baa wuxuu yiri nabigaanu yimidayo markaasaan soo hor fadhiistaan ku rasuul ilaahay dadka yaad ugu jeceshay isagoo nabigu u warwarin kaleey salaatu salaam aan hareeraha u eegin oo dadka aan iska eegin baa nabigu waxa uu yiri Aisha xaaskiisii buu tilmaamay kaleey salaatu salaam markaas waxaan weydiiyay buu min ar-rijaal nabi ilaahay rag yaad ugu jeceshay markaas nabigu wuxuu yiri abuha aabaheed baan ugu jecelay waxa kale oo nabiga kaleey salaatu salaam waqtiyada kamida intuu yaani guriga lagu qalay xoolo ayuu nabigu wuxuu Khadiija saaxiibadeedu geey xaaskiisii hore way Aisha xoogo ka yar maseertay oo dumarka arinkaasi uu isaga jiray ajuuz baytri Aisha habarta baytri markaas nabigu kaleey salaatu salaam waxba kama xumaanine wuxuu runtuu sheegay wuxuu ku inni ruziqtu bi hubbiha gabadha iyo xaaskayga hore waxa la igu arsaaqay baa nabigu kaleey salaatu salaam inaan jeclaa oo marka waxa weeye qalbigayga ay ku weyneyd arinta noocaas iyo kala ninkii inuu kala xishoodo ma hadaanu nabi maxamed ba kala xishoonin kaleey salaatu salaam inuu wax jurmi iyo dambi uu ka dareemo ay noqoto ma in wax lagu maxkamadeynayo lagu xirayo lagu xabsiyeenayo ka dareemo ma aha waa waxay tahay inuu caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhamaan ku idhaa sida iyagu ay tahay inay yaani ugu soo celiyaan ملاطفة يدبع سنانت النبي عليه الصلاة والسلام reerkiisa ugu dabacsanaa Aisha la weydiiyay waxa lagu yiri rasuulka Ilaahay sidoo ahaa markuu guriga joogo markaas waxay tiri kaana alyan an-nas basaman dhahaaka nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu dabacsan qosla in dhool cadeeyay nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa laga yaabaa walaalayaal imtixaanadayna haysta qofku ninku markuu gurigiisa ka maqan yahay maqaaxiyaha iyo suuqa joogo inuu sheeko badan iyo qosolkiisa iyo taanta wado gabadha lafteedu markay asxaabteeda la joogto inay aad u furfurantaa laga yaaba guriga markuu yimaado inuu askari military yahay baa dhacda gabadha lafteedu ay tahay marka waxa weeye askariyadu isagoo la mid ah oo hadal qalqalafsan iyo nolol adag marka lagu wada dhaqmo waxa mudan wanaaga aad sheeganayso dabacsanaantaada iyo gobnimadaada in marka gurigaaga ay ku taalaa mudan iyadoo dabcan dabacsanaanta iyo furfuraantaas ay xadkeeda ahaanayso oo aan xadka laga sii saarin وفرفرانتو هدي la gaadho meel xoog la kala qarsan waayo caruurtii iyo gabadhii odaygu isku soo baxsanayaan oo dhibaatooyin badan ayaa ka imanaysa qaacidada afraad ee reerku ku hagaagi karo ama u soo jiidaysa inay marka saacada iyo farxad ku noolaadaan الاحترام المتبادل مهما صعبت الظروف in marka labada qof ay is ixtiraamaan in kastoo xaaladuhu adkaadaan inkastoo xaaladuhu adkaadaan labadii qof inay is ixtiraamaan inkastoo oo duruuftu ay cuslaatana in qof kastaba qofka kale xaqiisa uu u guto isagoo ixtiraamaya wanaagahay bulshadeena iyo dadkeena aad bay ugu adag tahay in qofku markaa uu ixtiraam ilaaliyo oo gabadhu markay cadhootaabay ka bilaabaysa anaga ku guursanay ninkiina markaa uu cadhoodaabo ka bilaabaya anaga ku soo kaxaysanay hadallaan loo joogin meesha bool way culus tahay laakiin waxaynu doonaynaa inay nolosheena ka dhigno noloshii nabiga kaleey salaatu wasalaam dadkan uu baray noloshii ku dhisneed muslimoon run uga qaadan rabna nolol hagaagsan baa la rabaayo guri wanaagsan ka yimaado gaaladu way is ixtiraamaan iyagoo gaalaha kitaab iyo sunnad hoona garanay ayaaba gabadha ilaalinayaayo marka xataa haday kala tagayaan xataa haday qadiyadu gaadhaysay la furitaan xaqiisa ilaalinaya iyaduna xaqeeda ay ilaalinaysaa حتى أرنكو هدو قاري فريتان يوين لغو كلا دقاقو احترام كودو جوغيا ولا سلالينيا marka inagoo muslimiin ee boqolkiiba boqol waa inaynu uga mudnaano xataa ninka haduu go'aan ka qaato gabadhan inuu iskaga tago isagoo afkiisa haysto oo markaas dhowraya inuu ayarun ka tago iyada lafteedu iyadoo is dhowrayso oo ereyo xun aan isticmaalin in marka wax weeyaan ay marka kala tagaan haddii marka hadalla xaqiraada la isku isticmaalo hadalla gumayna la isku isticmaalo haddana la doonay nolosha la sii wado culays fara badan baa ka yimaada sida darteed waxaanu leenahay ninku xuquuqda gabadhiisu ay ku leedahay haday beelin tahay haday odaynimo reer tahay haday waxyaabo badan oo kale tahay inuu caafimaadkeeda iyo tixgelinteeda iyo waxsiinteeda ka shaqeeyo waa inaanu meermeerin
gabadhu xaqa ay de ku leedahay oo reernimadii iyo hooyanimadii ogolaata iyo khidmadii odayga loo khidmeynayay xaafadda de waa inay iyaduna markaa si rasmi ah u gudato oo aanay markaa waxa weeye meermeerin iyo bilaabin ixtiraamna waa in arrimaha lagu dhiso qofka dhigaalkiisa ama reerka uu la wadaagay hadduu ixtiraamo ogaada khayr oo dhan ba agtooda yaal hadduu quursado ixtiraamka uu banaanka ku tuurana noloshoo dhan ba banaanka kaga dhacaysa qaacidada shanaad ee u dambaysa waxay tahay oo qawaacida aan kaga baxayno waa in reerka lagu dhaqaa al-udhr wa tagaaful waxa loo jeedaa qofka kale inuu cudur daaro qofka kale waxyaabo badan oo ishiisu qabanayso cawra ama dhiba inuu isha ka laliyo oo markaa waxa weeye xumaantii meesha taale aad u sii fadfadhin nabiga kaleey salaatu salaam maalmaha kamid reerkiisa waxa ka dhacday xaaskiisa oo soo dirtay casuumad raashin عائشة gurigeedu fadhiya عائشة way ka maseertay oo gacanta ku dhufatay raashinkii nabiga loo soo waday kaleey salaatu salaam xeeradina way jabtay raashinkiina u daatay nabiga kaleey salaatu salaam soo ururiyay buu yiri raashinkii baa la isku keenkeenay waa la cunay markii intii la dhameystay sheekadu dhamaatay nabiga kaleey salaatu salaam wax mashaakil ma furin waa qalad meesha yaala qof haduu yahay nin Soomaaliyeed ama dadkeenaba uu yahay wuxuu ka bilaabi maxaad xeerada u jabinaysaa maadaa soo diray maadaa keenay uu ka bilaabi lahaa canaan aan loo joogo nabiga kaleey salaatu salaam ishuu ka laliyo hadhow buu ku yiri Aisha raashiniyo noo keen intii oo kale Aisha soo sameysay intuu qaaday saxaabi u dhiibay buu ku orado heblaayo geey waati laga soo qaaday Aisha haday nabiga soo eegtayna nabiga kaleey salaatu salaam si dabacsan soo dhool cadeynay wuxuu ku yiri طعام بطعام وإناء بإناء raashinkaaguna raashinka daadiso u dhigma xeeraduna xeerada u dhiganta warkuna u dhamaado waa si aad u qurux badan oo loo daweyn karo dhibaatooyinka iyo foolxumooyinka yimaada ninku hadii xoogo ila nolol baa lagu jiraayo qalad uu imanaya qofku malag ma aha haduu qalad ka baydho hadii loo cudur daaro gabadha lafteeda markay wax ka dhacaan loo cudur daaro tagaaful lagu sameeyo ishaga laga laliyo waxyaabo badan oo iska fudfudud oo culays badan lahayn noloshu qurux bay ku sameeysaa laakiin hadii la is muhaasabeeyo oo traafika la isku noqdo traafikada baabuur ma dhaafay moogti sirbu waa fuufaya maanta oo dhan hadii labadii isqabayba traafika ay isku noqdaan oo istaagta la isku noloshu culays badan bay gashaa wax badanna way markaa kharibmaan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waxa laga wariyaa inuu yiri walaalka buu ibcad li akhiika 70 cudran walaalka waxa uu raadisaa buu 70 cudur daar haduu khaldamo 70 kaasi haday ka geyn waayaan ay ku qancin waayaan marka 17aad waxa la yiraahdaa waxa laga yaabaa inuu leeyahay cudur daar aan anigu garanayn waxa laga yaabaa inuu leeyahay cudur daar anigu aanan garanayn waxa laga yaabaa inuu leeyahay cudur daar anigu aanan garanayn buu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warkaasi walaalayaal ismooganaysiinta iyo isdhaafinta cudur daarka waa wixii ku saabsan qofku intaanu sharciga ku gafin gabadhu haday sharciga weydaarato waa la sixi man khalafa al-haqq yuqawam baa la yiriyo tablay qalad baad ku jirtaa kitaabkiisa sunnaha khilaafsantay u kaadi baa la oran ninku haduu diinta khilaafana deebelu kaadi baa la oran diintii baad khilaafsanto iyadu waa meel kale laakiin hadaanu qofku shariicada khilaafayn waxyaabo yar oo iska gafaho ay ka imanayaan in badan in isha laga laliya quman oo la iska dhaafo waana markaa la dhameeyo waa talayliid gabadhu hadii aad markaa ka doonto waliba ragga waxaan gaar ugu soo dardaaraya inay sidaa wada noqoto hadaa doonto feero kale wad jabinaysaa ha iska qalloocsanaato qalloocaas in lagu wadwado weey waxaanu kaga baxaynaa oo qodobkeena u dambeeya uu yahay waxyaabo la yiraahdo mahaaraadka maxaan idhaahnaa waa xawaashka raashinka lagu daro weey ee udgiye qurxiya iyadoo qaacidooyinka guud lagu dhaqmayo waxa jira waxyaabo reerku qofka ay ku jeclaadaan oo ninka ay aad ugu jeclaadaan caruurtiisa iyo islaantiisa iyo qaraabadiisa iyo qoyskiisuba iyo hooyadii iyo aabiga dadka ula nooli sidaas oo kale gabadha lafteeda aad loogu jeclaysto qof kasto sameeyana lagu jeclaysto waa ila 12 qodob baynu ka sheegaynaa qodobka koowaad ee lagu jeclaysanaya waa salaanta marka guriga soo gasho dadka salaano assalaamu alaykum rasuul nabigu baa alayhi salaatu salaam waxyaabaha la isku jeclaaday kamid tahay sidaas oo kale al-hadiya in qofka hadiyad loo keeno nabigu wuxuu alayhi salaatu salaam tahaadu tahabbu oo isku hadiyay way isjeclaan doontaan wax kale buuran xataa hadaad weydo wax yar oo iska fudud oo dafiifa soo qaadod siiso waxa uu qofku arkaya ihtimaam gabadhii markaa nabiyullaahi Suleymaan doonaysay inay badda soo galiso oo ay gacanteeda soo galisay atriyi kaadi hadiyad baan u diri doonaa markay la tashanaysay madaxdeedii qataada wuxuu leeyahay ma aqalaha fi kufriha wa islaamiha maxaa ka aqli badnaa buu gabadha markay gaalada ahayd markay islaamka waxay ogeyd buu yiri hadiyada qof loo diraa inay meel weyn kaga dhacdo mujarrab way wala tijaabiye bal qof hada kugu soo ligligano ku caayo ku kadeedo ku dhiba hadiyad yar isugu xidho u diro hebel baa kugu soo diray halayda maalin dambe kugu soo dhici maayo
وأكتاد الصومري ماي waxyaabaha la isku jeclaysto waxa kamid ah almusaacada qofka inaad kaalmayso hawshiisa aanad ku eegin gabadhu aanay ninkeeda ku eegin hawlaha culus ee haystay wax kala qabato isaga laftiisu aanu ku eegin hawlaha iyo culayska haystay wax kala qabto nabigu kaleey salaatu salaam wax kale iska daayo gurigu kala khidmayn jiray kala shaqayn jiray xaaskiisa ilaa marka aadaanka uu maqlo intuu wax walba uu hayo uu dhigo u bixi jiray nabigu kaleey salaatu salaam dabcan ninku maanta haduu biyo gabadha u yar qaado ama wax isugu yar leexiyo magacyo loo bixinayaa bulshadeenu waa barnaamij badan yihiin laakiin sunnada nabiga laga horeysiinaya kaleey salaatu salaam wax kastaba gabadha culus ee dhibaataysan in la qabto way dhaqanku waa kayna geeysiye axyaana ninku intuu yimaado uu geed hoos duubo inuu dhaaf laayo reerku waa geedi dabeetayada uur la ama imkaba umushay intay dhaxda xidhato oo ilmahana xambaarato buulku sidoo u dhan yahay waa tii kala daadinaysay ee hadana rarayso uu adhow iska soo toosiyo ayarun awrka marka qabsanaya xagga hore looma baahnaa waa in la isaacido la iskaalmeeyo wixii ay gabadhu ninka la fulin karaysana la qabato isagoo wuxuu la qaban karayna la qabto qodobka afraad la isku jeclaysta waa xusnul istimaac qofku hadduu damco inuu kula hadlo la isma dhaafiyo TV lagama mashquulo waan yara igu soo noqon lama yiraahdo dhagaha loo furay balsiida waxa ay saalayda nabigu kaleey salaatu salaam gaal ku soo hanuuniyo xusnul istimaac qolo gaalo oo ku lagnayd ayaa nabigu kaleey salaatu salaam uu dhageystay sidii ninkii markaa ku yiri in waxaan maqlay in lagu sixrayaan quraanku waa akhriyo nabiga ku yiri kaleey salaatu salaam nabigu kama caroona bal maxaa doonaysaa inaan quraanku ugu akhriyo nabiga quraanku dul akhriyay ilaa ninkii isbedelay oo nabiga raacay kaleey salaatu salaam waxyaabaha la isku jeclaado waxa kamid ah shukr mahadnaqa haduu qofku wax ku sameeyo wax kale iska daayo koobiya haduu ku soo daro waad mahadsan tahay mashkuur iyo khayr Allah ku siiyo iyo wixii lamida in la yiraahdo aad bay u fiicanta waana ilbaxnimooyinka inaga dhiman bal waxa laga yaabaa in ka xishoonaba ka khajalaba waxyaabaha qofka u keena waxa kamida maxabada iyo in la jeclaysto alibtisaam inuu dhool cadeeyo oo iska ilaaliyo inuu noqdo marka qof wajigiisu cabuus iyo xidhxidhan yahay waana nabiga sidan ahaa kaleey salaatu salaam waxyaabaha waa lagu kala aragti duwan iyo dadka adag waxa laga yaabaa inay yiraahdaan maye wala ilaahay waxa quman marka in la urursanaado laakiin sida nabigu ahaa si kastaba ka fiican kaleey salaatu salaam dhool cadeyn jiray waxa kamida waxyaabaha la isku jeclaysto al-i'tidaar wal-i'tiraaf bil fadl gaf hadaad gasho wax ka qaldamaan inta la is adkeeyo lama yiraahdo mari qaladka waa la cudur daartaa waxa la dhawan ka xuma waxa soo isweydaarteen raali ahaad nin hadaad iyo gabar hadaad tayba sidaas oo kale waxa kamid ah al-i'tiraaf bil fadl qofku wanaaga uu ku sameeyo waa loo qiraa nin haduu yahay khayr Allah ku siiye waxa waad noo yeeshay baa la yiraahdaa gabadha lafteeda ninkuna waa inuu soo yiraahdo uu leeyahay khayr Allah ku siiye waxa waad samaysay nabigu wuxuu tilmaamay kaleey salaatu salaam sababta dumarku ay naarta ugu bateen inay tahay wixii odaygeedu u qabtay inay markaa in kareyso sanadu u hagaagsanaanaya maalinba wax ka kala dhacayaan waligayba khayr kaamaan arag bay dibadda tooranaysa waxa kamid ah waxyaabaha la isku jeclaysanay walaalayaal at-tafani inuu qofka kale isu dhameeyo waxaan uga jeednaa dawaaba qofka Ilaahay nolosha ka dhaxwadaajiyay umada kale ee suuqa iska joogta inuu ka xiga ninku waa inuu xisaabsada gabadhiisuna ay ka xigto musiibada ay haysato waxa kamid ah gabadhii kii guriga kula noolaa tala ka dhageysan maysee guriga afartanaad bay u wareegiyo markaas guriga afartanaad waxa laga leeyahay wala iman doonto saniya sana jaar ku lahaayo cayn kala la sheegaya waa sidan iyo sidan isagii baa la nolosheena inaga og heblaay nolosheena inaga og sida ma ha u kaadi iyaduna waxay leedahay ma caynka isagii laftiisii baa caynkaas oo suuqii u soo dhageysanayo dadkii kale iyo qaraabadii u soo dhageysanayo waxaan baraarujinayaa walaalayaal oo ay tahay inaan dhaafin gabadhu inay ninkeeda saydarayso oo ninkeedu ka boqo oo ninkeedu ka dambeeya amaan ma dumarka Soomaalidu waxay amaan u haystaan heblaay ninkeeda geed bay ku xidhay uu dhageystayo waxay tiraa horeba uu ka fuliyaa cilbu kula jooga si uga baxsado uu garan leeykaas qodobka sagaalaad wuxuu noqonayaa tadxiya waa in wax la isu huro oo ninkuna wax ka tago uu sii daayo gabadhiisa darteed iyaduna waa inay wax ka tagtay sii dayso hadii laakiin qalin iyo buug la isku soo qaato la is xisaabiyo oo la yiraahdo wallahi ka tay pointiga soo dhig noloshu hagaagmayso wax badan ma maqnaanaya qodobka tobnaad wuxuu noqonayaa cadam muqaaranati maca aakhariin qodobada halista waxa kamid ah waligaas kastood u cadhooto gabadha dumarka la masayn oo horan heblaayaba waa caynkaas oo ku dhaamaane si kastood u cadhootana ninkaaga halla simin raga kale oo horan hebel basaasay sameeyaan waxaasay qabtaan kana ilaahay ku badaa kan la dikriyo bisanka la qabso isagu suu kuugu hagaagi lahaa oo ugu ducee gabadhana ilaahay ku badaa taas uu qodobka 11 wuxuu noqonayaa cadamul imtinaan qofka looma mana sheegto
لو ما نشيكتو وناغ aad u qabatay waanagi sida iyo sida ku yeelay lama ila waliga ولا تمنن تستكثر nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam dadka ha uma sheegan qof kale maxaad u malay qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay hadii wax laga dalbado rag iyo dumarba iyaaka wa taswiif waxaad iska ilaalisaa oo iska ilaalisaa inaad arrimaha dib u dhigto hadii aad awoodayso oo tiraad sawfa afcal aadwan samayn doona insha Allah waan qaban doona hadii aad awoodi karayso marka kala go hadii aanad awoodi karayna marka ka cudur daaro waxa tiraad hawsha ma qaban karo laakiin inta badan intaan wax ballan qaadno oo nidhaahno insha Allah waan dhameeynaa ayaa hadana marka waxa weeyaan jiita dambe ka soo noqda qodobka ugu dambeeya yaani ugu dambeeya afwan kaamid ba ka sii dambeeyay qodobka ugu dambeeya waa in la isu duceeyo quraanka waxa ku soo arooray dadka saalixiinta ah inay marka yiraahdaan ilaahay oo awlaadayada iyo caruurtayada waxa nooga dhigtaa indha doogsi ducadu waxay keentaa in ilaahay tabaaraka wa taala cilibtaada iyo reerkaaga ku hagaajiyo inahaas in ku soo koobi doona insha Allah taala waa xalqada saddexaad iyo maamulka miisaaniyada usrada iyo reerka oo inta badan muran ka dhasho wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk نظر الزهر فاصطفاك عبيرا وغدا الليل من سناك منيرا وكأني أرى النسائم رقات وغدت من شذاك عطرا أثيرا لمسات الجمال جاءت كقلب واحد فاض من هناه سرورا أي يوم كيوم سعدك فينا يجعل الدمع في العيون بشيرا إن بكينا فللسعادة دمع حال عجز اللسان يغدو سفيرا حروف الوداد فينا تهني فرحا سرنا كثيرا كثيرا جمع الله بينكم في هناء وأحال العسير سهلا يسيرا وأحال العسير سهلا يسيرا نظر الزهر فاصطفاك